ciidanka sida gaarka u tababaran ee Xaram Cad ayaa maanta howlgallo kala duwan waxa ay ka sameeyeen xaafado ka tirsan magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Dadka ku nool magaalada Beledweyne ayaa waxa ay sheegeen in ciidamada ay baaritaano xoog leh ku sameynayaan dadka iyo gaadiidka ka kala gudbaya buundada Nuur Xawaat ee magaalada Beledweyne. Saraakiisha ciidamada dawladda iyo maamulka magaalada Beledweyne wax faahfaahin kama aanay bixin howlgalladii ugu dambeeyay ee ka dhacay magaalada Beledweyne. hayeeshee waxaa maanta si weyn howlgalladaasi looga dareemay xaafadaha ku dhowdhow xaafadda Nuur Xawaadle oo ku taala magaalada Beledweyne. howlgalkan maanta ciidamada sida gaarka ah u tababaran ee Xaram Cadka ay ka sameeyeen magaalada Beledweyne ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli shalay Generaal Xuud uu u qabtay mas'uuliyiinta ka socota maamulka Hirshabeelle ee jooga magaalada Beledweyne in magaalada ay uga baxaan jabhadda uu hogaaminayo Generaal Xuud oo ku sugan duleedka magaalada Beledweyne ayaa dhowr mar ku hanjabay in tilaabo ay ka qaadi doonaan mas'uuliyiinta maamulka Hirshabeelle ee ku sugan magaalada Beledweyne iyagoo ku sheegay in shacabka ay dhibaato ku hayaan. Generaal Xuud ayaa waxaa la sheegay in hadda uu isu diyaarinayo in magaalada uu weerar ku qaado. wararka qaar ayaa sheegaya in ciidamada dawladda iyaguna ay diyaargarow ugu jiraan in magaalada ay ka difaacaan haddii uu jananku isku dayo in magaalada arbushaad amaba uu weerar ku soo qaado. saacadihii la soo dhaafay magaalada Beledweyne waxa ay wajahaysay culays kaga imaanaya labada dhinac waa Generaal Xuud iyo ciidamada dawladda Soomaaliya iyagoo saraakiisha dawladana ku hanjabay in gacanta ay ku dhigi doonaan Generaal Xuud iyo maleeshiyaadkiisa haddii ay isku dayaan in magaalada Beledweyne ay foodo ka sameeyaan. taliska booliska saldhigga magaalada Cadaado ee gobolka Galgaduud ayaa soo saaray amaro la xiriira dhinaca amniga kaas oo ku socda dhammaan shacabka ku nool magaalada gaar ahaan milkiilayaasha gaadiidka iyo goobaha ganacsiga. dhammaan waxaa la farayaa gaadiidka isticmaala muraayadaha madow ee kuwa raaxada iyo kuwa dadweynaha ee BLka in ay yimaadaan saldhigga booliska magaalada Cadaado. ujeedkana waxa uu yahay adkeynta amniga ayaa lagu yiri warka ka soo baxay booliska Soomaaliya ee jooga magaalada Cadaado. sidoo kale waxaa laga digay in hub sharci darro ah lagu dhex qaato gudaha magaalada Cadaado. waxaana lagu soo warramayaa in milkiilayaasha hoteelada goobaha ganacsiga in hubkooda ay soo diiwaangeliyaan haddii kale maamulka uu tilaabo ka qaadi doono. magaalada Cadaado ee gobolka Galgaduud ayaa waxa ay ka mid tahay deegaanada maamulka Galmudug magaalada uga amniga fiican iyadoo booliiska iyo guud ahaan laamaha amniga ee magaaladana marba marka ka dambaysa ay dhinaca amniga tilaabo dheeri u qaadayaan sida lagu xusay warka ka soo baxay booliiska Soomaaliya ee jooga magaalada Cadaado. waxaase xusid mudan in magaalada Cadaado ay joogaan militariga sirdoonka iyo booliiska oo dhammaantood ka socda kuwa federaalka iyaga oo garabsanaya kuwa maamulka Galmudug. xukuumadda waddanka Kenya ayaa maalmo kadib waxa ay ka hadashay sida ay u aragto go'aanka maxkamadda cadaaladda adduunka ee ICJ ee ahaa in mar dambe aanay dib loo dhigi doonin dacwadda la xiriirta dhinaca badda ee ka dhaxaysa Soomaaliya iyo Kenya. go'aanka maxkamadda ayaa yimid kadib markii Kenya ay codsatay in dib loo dhigo dhageysiga kiiska loo ballansan yahay 15 bisha Maarso ee soo aadan sanadka 2021. xogayaha joogtada ah ee wasaaradda arrimaha dibadda waddanka Kenya Kamawa oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu sheegay in go'aanka diidmada ah ee maxkamadda in aysan ka dhignayn in Kenya ay ku guuldaraystay balse uu rajaynayo in tilaabo hore loo qaado. xogayaha joogtada ah ee wasaaradda arrimaha dibadda ee waddanka Kenya Mr. Kamau ayaa sidoo kale waxa uu sheegay isagoo ka hadlayay arrimaha la xiriira sida ay u dhacayso dhageysiga kiiska dacwadda ayuu tilmaamay in la eego xaaladda cudurka dilaaga ah ee COVID-19 inkastoo maxkamaddu ay sheegtay in si toos ah wufuuddu ay u imaan doonaan xarunta maxkamadda cadaaladda adduunka ee ICJ. maxkamadda caalamiga ah ee ICJ ayaa waxaa la filayaa in go'aan rasmi ah ka soo saarto kiiska dacwadda badda waxaana dawladda Soomaaliya ay sheegtay in rajo wanaagsan ay ka qabto in Soomaaliya ay Kenya kaga guulaysto maadaama cadeymaha la hayo inta badan wax ka badan 99% ay taageerayaan in Kenya aanay sharciyad haysan isla markaana badda lagu murunsan yahay ay tahay mid Soomaaliya ay leedahay.